soo dhawaada saaxiibayaal mar kale filimka bilowgiis qoys ayaa lagu soo bandhigayaa bilowga filimka aabbaha Jiro ayaa la tusaya kaasoo si adag u shaqeynaya sidii guriga u dhisi lahaa laakiin qoyskiisii waxay u arkaan dadaalkiisii mid aan macno lahayn waxay u haystaan Jiro inuu yahay nin aan waxba tari oo nacas ah inkastoo Jiro maalintii dhan si daacad u shaqeyn jiray iyaga dartood dana uma bar inay qadariyaan ama xushmeeyaan carruurtiisii waxay ka xishoon jireen inay yiraahdaan aabbo waxay rumaysnaayeen in Jiro noloshiisii waxba qaban inuusan waxba dhisin sababta urmin waayeen riyadooda Jiro wuxuu noqday nin jilicsan balse qoyskiisii taas ma fahansan waxay garan waayeen inuu gabadhiisii shaqada ay dhaaftay mas'uuliyadda shaqada mardam isiga ma saar waa in carruurtiisii ay qaataan laakiin carruurtiisii ma aysan fahmin waajibaadkooda iyaga ayaa deeceen dusha ka saareen aabbahood inkastoo uu la kulmay dhibaatooyin badan Jiro weli uu shaqayn jiray oo xitaa isiga qoyskiisii ay joogaan weli wuxuu ahaa qof keli ah wuxuu ahaa nin daacad oo toosan taas ayaa keentay xafiiskiisii lagu xushmeeynin isigana saaxiiban xaaladiisii ayaa sii xumaatay markuu dhakhtarku taasi uu isku baaro dhakhtarku wuxuu u sheegay inuu qabo kansar oo dhiman doono dhawaan Jiro wuxuu isku dayay inuu qoyskiisii la wada xaqiiqada murugada leh laakiin waa iska dhintay warbixintaasi qof walba wuxuu ku mashquulsanayaa noloshiisii xilligaas Jiro wuxuu helay farxad oo ay u helay eygaas wuxuu waa mid daacad oo Jiro markay xaaskiisii ogaato waxay ku tiri eegan guriga ka saar laakiin eegii muusan ka tagin Jiro marabadin ku celin inuu eega iska tago laakiin eey weli uu ag fadhiyaa markaas Jiro uu qaadir jiimisi ugu fogeeyo halkaas Jiro ku arkay dayax gacmeed aad u yaab leh koor intaysan wax fahmin dayax gacmeedkii aad u soodii ku soo dhacay isla markiiba Jiro waa u dhintay kadibna maskaxdiisii waxa ku dhacay muuqaal dib xasuusin ah daqiiqado ku Jiro dib ayaa loo soo noolsiiyay wuxuu guriga ugu laabtay isigoo wata eegii laakiin markuu guriga mid wax walba waxay u muuqdeen kuwaan caadi ahayn wuxuu bilaabay inuu qabto hawlo hor lagu tilmaami jiray inuusan qaaban karin wuxuu dareemay xoog qarsoon jirkiisii ku jira wuxuu ay gacantiisii mid ka mid ah farta midkood ayaa furantay si aan la fahmeynin waxaa ka soo baxay laba irid oo USB markuu cunaha taabtay wajigiisii ayaa gebi ahaanba furmay labadiisii gacmo way furmay isla markiiba wuxuu bilaabay inuu fahmo xaqiiqada dhacday shilkii dayax gacmeedku wuxuu sabay isbedel la yaab leh wuxuu u bedelay mashiin la wajiga bini'aadamka wiil dhalinyaro oo la yiraahdo Hiro ayaa koobtaas joogay isaguna wuxuu soo bedelay mashiin limadkan Jiro laakiin Hiro sida dib u fahmay wadiisii cusub wuxuu si dhaqso u bartay siduu adeegsan lahaa wuxuu xitaa noqday khabiir ku xeel dheer wadiisii Hiro wuxuu fartiisii ku toogan karaa rasaas wuxuuna si buuxda xakameyn karaa qalab kasta oo koronto ah wuxuu wadiisii u sheegay mid ka mid saaxiibadiis Hiro wuxuu waa wiil kale qoyskiisii waxa ka mid hooyadiis oo kaliya aabiis wuxuu ugu tagay hanti darteed taasi waxay sababtay in Hiro mar uu jeclin hooyadiisii farxad geliyo laakiin xaaladiisii dhaqaale aad bay u liidatay wuxuu waa sabool awood u malay in wax bedelo wuxuu mar walba daal dhacsanaa murugiyo nijaab markasta uu arko qoy faraxsan wuxuu dareemi jiray xanaaq wuxuu dareemi jiray masaar dhanka kale Jiro wuxuu bilaabay inuu si fiican u fahmo wadiisii cusub wuxuu arkay inuu si dhaqso isku daaweyn karo haddii uu dhaawacmo intaas dhexdeed Jiro wuxuu maqal cod oohin ah isigoo raacay cidkaas Jiro wuxuu gaaray isbitaalka wuxuu arkay in wiilka gabadhaas uu dhow yahay inuu dhinto markaas uu Jiro wadiisii u adeegsanay in wiilku badbaadiyo wiilka gabadha ayaa si buuxda u bogsooday hadda Jiro wuxuu gaas inuu wadiis isticmaali doono isigoo dadka kala caawin doona dhanka kale Hiro ayaa la arkaya wuxuu ka fikiraya wadiisii inuu isticmaali doono inuu dadka ku dhibo waxaa la arkaya inuu carruurta qaar jaamacadda ku dhibaayo saaxiibadiis way ka baqayaan markay arkaan siduu u dhaqmaayo hadda wuxuu bilaabay inuu tiisi u arko boqor wadiisii darteed wuxuu ka fikiraya inta qof uu gaarsan doono markar wuxuu u dhaqaaqayaa aabihiisii markuu halkaas yimaado wuxuu bilaabay inuu dilo qoyska aabihiisii laakiin sabab aan la garan awgeed wuxuu ku laabtay inuu dilo markaas uu joojiyay kadibna dib uu gurigiisii ugu laabtaa intuu jidka marayo wuxuu maqlayaa qosolka qoys faraxsan markaasuu Hiro hanaaqayo oo dhammaan xubnaha qoyska dilaya warkaasi dhaqsay u faaf qaabka qoyska loo dilay saaxiibkii Hiro ayaa fahmay in Hiro ka dambeeyay maxaa yeelay qof kale ma qaban karo falkaasi sababtaas awgeed saaxiibkii Hiro wuxuu u joojiyay saaxiibtinimadii carruurnimada uu la lahaa hadda Hiro wuxuu galigiisii yahay oo cidna ma lahayn dhanka kale Jiro aad buu ugu murugooday arrimahaasi shaqadiisii xafiiska si wanaagsan uma qaban karo dhibaatooyinkaasi wuxuu codsanay shaqadiisii sii hayo markaas dib ugu laabtay gurigiisii markuu uu gaaro xaaskiisii waxay ku tidhi wiilasha hadda ma doonaan inay jaamacad aadaan gabadhiisina waxay doonaysaa inay ka tagto jaamacadda wax ugu yaab badan uu waa in Jiro xaaskiisii la leedahay xiriir kale ninka taaga dar in Jiro waxba uusan ka hor qofna dhinaciisii wuxuu u sheegay in qof kasta xaq u leeyahay noloshiisa noolaado ninka xor u yahay noloshiisa sidoo doonay hogaaminaya kadib wiilkiisii wuxuu ku yara ka baqin dadka kale gabadhiisii wuxuu ku bir waxa farxad ka dhisi kartaa farashaxanka
qoyska inkastoo la filinayo rabitaanka xubnaha qoyska waxay haddana dhaleen Ejiro markaas Ejiro geligiisii kiis fidhiistay isigoo jabsan isla waqtigaas wuxuu maqlayaa nin oo yaaya codka ninkaas wuxuu saaxiibka Hiro oo aad ugu walaacsan qaladaadka Hiro sababta saaxiibkiisii wuxuu ku socdo dhaqalada nolosha ah Ejiro hadda wuxuu doonayaa inuu sidoo halkaas u gaaro baal robot leh ka soo maqsid ugu dhaqsiyaha badan hadda wuxuu u duulay saaxiibkii Hiro markuu halkaas gaaro saaxiibkii Hiro wuxuu u sheegay xaqiiqada oo dhan wuxuu leeyahay adiga joojin kar laakiin Ejiro mana xirfada dagaalka saaxiibkii Hiro ee ka caawinaya arintaas kadib wuxuu caawiyaa biyo milix leh laakiin mashiinka robotka ee ajnabiga ma aqbalo isbedelkani wuxuu biyo si dhaqso ugu tooraya taas micnaheedu waa in mashiinku uu jaw haduu la kulmo biyo milix leh dhanka kale booliska ee halkuu Hiro joogay maxaa yeelay wuxuu in Hiro ku dambeeyay dilkii qoyska markaasay bilaabaya inay qabtaan laakiin Hiro ma aqbalo digniinta qofna wuxuu bilaabay in qof walba tagto kadibna uu baxsan markaas uu tagay saaxiibkiisii Hiro waxa laga yaqaanaa meel kasta wuxuu ku wada doonayo dadka oo hooyada Hiro waxay u sheekeynayaan si xun sababtaas oo hooyada Hiro aad u murugad waxayna isdilaysaa markuu Hiro xaqiiqada uu waalin caradiisa darteed hadda wuxuu dhibaataynayaa qof kasta oo ka soo horjeeda wuxuu jibinayaa qalabka dadka wuxuu bilaabay inuu dilo qof walba laakiin Ejiro wuxuu ogaay in Hiro kan dambeeyay falalka xunxun wuxuu qoyskiisii kula talinay in ka fogaadaan qalabka korontada laakiin qof qoyska mid taladiisa si dhib ah uma qaadan dhanka kale Hiro wuxuu qorsheeyay in dadku dilo habka loo cusub markaas saaxiibtiisii ay u timid ooga xaaladda inkastoo ogto waxay caawinaysaa Hiro waxay rumaysantahay in Hiro dhammaan isbedeli doono hadda Hiro wuxuu dareemayaa naxariis iyo murugo sidaa darteed uu go'aansaday inuusan qof dilo maalin si dhab ah isla waqtigaas booliska ayaa meesha yimaadaan waxayna bilaabeen inay toogtaan Hiro laakiin halkan Hiro naftiisii kama lululayo maxaa yeelay waxba ma kaari karto wuxuu ku walwalsanaa waxay saaxiibtiisii sababta waxay la ku tahay inay wax ku dhacaan toogasho dhacdo Hiro wuxuu isku dayay in saaxiibtiisii uu badbaadiyo laakiin iyada ayaa la toogtaa waxay dhimantay markaas Hiro si xun u xanaaqay wuxuu go'aansaday in dunida oo dhan baabi'iyo wuxuuna hakareen dhammaan shaashadaha kombiyuutarka moobilada derbiyaha dhismayaasha si uu dadku dilaa magaalada waxay ku jirto jahwareer weyn dadka ayaa cabsi ku orday meelaha kala duwan dhanka kale dadka baaba'ay xaaladda u qaadanay sidii ciyaar carruurta Ejiro ayagana kamid ah hadda Ejiro hakareen dhammaan shaashadaha adeegsanay saaxiibka Hiro wuxuu dadku diray fariinka fogo dhammaan aaladaha korontada dhammaan waxay ka fogaanayaan aaladaha korontada taasi oo tirada dhismaha hoos u dhacda hadda Hiro wuxuu bilaabay inuu isticmaalo hubkiisii wuxuuna bilaabay in kataalada ku tuuro dhismaha magaalada markuu arintaas arkay Ejiro iyo u dhaqaaqay Hiro wuxuu la dagaalamay dagaal weyn dhaxmaraya si kastaba intuu la duulay Hiro wuxuu fudayay inuu duuyaha ka turgo ku tuuro laakiin Ejiro ayaa badbaadinay duulaha Ejiro marka uu ka cararaya Hiro maxaa ilmo uusan awood badan sidii hore hadda Ejiro wuxuu Hiro siiyay biyo milix markuu u qabsaday sababta jirka robotka Hiro hadda mid teknoloji sare leh sidaa darteed biyo milix saameyn degdeg kuma yeelan sidaa darteed Ejiro wuxuu Hiro ka qaaday dhulka u duulay hawada sare haddii biyo milix la waxay bilaabeen inay saameeyaan Hiro hadda markuu Hiro awoodiisii lama Ejiro wuxuu weeray isigoo awoodiisii adeegsanaya kadib wuxuu u dhaqaaqayaa gabadhiisii wuxuu badbaadiyay nafteediisii korontiisii u nafsisto Hiro markale yimid meesha waqtigan wuxuu garaacay Ejiro si xun xaaladda Ejiro waxay sii xumaatay isigoo Hiro garaacaya kadib Hiro wuxuu gabadha Ejiro ka dhigay dhibina cusub wuxuu bilaabay inuu gabadha ka tuuro dhismaha Ejiro ka baray Hiro inuu naxariisto gabadhiisii oo dhaafo laakiin Hiro uu diiday gabadha hoos u riixaya awooda qorsan ka soo baxay Ejiro markuu Hiro sidaas sameeyo wuxuu Hiro ku dilay awoodiisii kadibna wuxuu badbaadinay gabadhiisii kadibna wad ayaa magaalada markale ka dhacdo qoyska Ejiro ayaa guriga ku ixtiraamaya muuqaalka ku dambeeyay filimka ayaa muujinaya Hiro wiil nool yahay kadib filimku wuxuu ku dhamaanayaa muuqaalkaas dii halkan nala soo gaartay aad iyo aad baa u mahadsan tahay hadduu jilaa subscribe saaro wadin subscribe ku waxaan ka cusubnaa muuqaalka lana saartay meel dhowr noo gaar aad iyo aad baa u mahadsan tahay